كان عذر كان عذر ما عشان كده مين موبايلك ايه؟ مركا waxaan u taagannahay dhaawac ummadda Soomaaliyeed oo dhibaatadii shalay uu sababay qayb kamida oo maanta loo wado dalka Turkiga oo ay gacan noo fidiyeen walaalahayna Turkiga waa kaga mahad celinayaa gacanta ay noo fidiyeen maadaama ay nala qaybsanayaan culays aanan qaadi karin inayna u garab istaageen uga mahad celinayaa inta bugto ay qaadeen Allah caafiyo inta dhimanna Allah noo caafiyo hartay sidaas darteed dadka shalay dhaawacmay waxaa kamid ah walaalkay aniga iga yar ayaa kamid ah oo ahaa ciidamada booliiska qaybtooda turmataariyada ee joogtay meesha wuxuu ahayto ex control qaraxaasi marka uu dhacay madaxda dawladda ilaa waqtigan hadda aan xilligaas qaraxu dhacay ilaa waqtiga hadda aan joogno waxa ay ku jireen gurmad loo fidinayo dadkii ku waxyeeloobay waxaa noo suura galay dadaal badan kadib 16 ka mid ah dadkii ku waxyeeloobay qaraxaas in loo qaado dalka Turkiga ee aan walaalaha nahay waxaa ila taagan halkan wasiirka amniga qaranka safiirka Turkiga oo fadhiya Soomaaliya wasiirka gargaarka iyo ka hortagga masiibooyinka iyo dhakhtarka taliyaha booliska Soomaaliyeed iyo dhakhtarka u qaabishan dawladda Turkiga ee badbaadinta bukaanka Soomaaliyeed haddii ay yihiin halkan iyo haddii ay yihiin wixii halka wax looga qabo intaba sidaa darteed waxaan rabay halkan inaan uga mahad celiyo dawladda Turkiga oo mar walba dadka Soomaaliyeed garab taagan marka ay dhibaato la soo gudboonaato sida aad ka warqabtiin laba muwaadin oo Turki ah ayaa laftooda ku geeriyooday qaraxaas foosho xumaa shalay ka dhacay ex control afgooy meedadkii labadaas muwaadin Turkida ah ayaa ayagana sidoo kale loo qaaday dalka Turkiga waxaan halkan nala jooga dhammaan mas'uuliyiinta aan sheegay ayaga ayaan rajaynayaa inay kelmadooda ka yiraahdeen wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum innahi raaji'uun marka hore waxaan halkan mar labaad aan ugu tacsiyay mar saddexaad shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Turkiga aan walaalanahay dadkii ku guuriyay shalay dhacdada ka dhacday oo aad u falxumeed ex control dadkaas waxaan Ilaahay ugu baryaa oo waxaan leenahay meeshu ay ku shahiideen in jannada firdaws Allah ka waraabiyo sidoo kale inta dhaabacday ee ugu horeysay inta maanta la qaadan Ilaahay iyagoo caafimaadka wadankooda ku soo celiyay inta hartana hadduu Ilaahay yiraahdo oo wadanka lagu daaweyn doono qaar ka mid ah ayagan waxaan rajaynayaa Ilaahay caafiyo waxaan rabaa halka inaan ka saxo in tiris dhaafsan ay gudoomiyaha uu sheegay 16 safiirkan uu sheegay 18 marka dadka la qaado waa 16 safiirka eragaas qalday waa ka 16 qof meesha ugu dambeeyay dadka la qaaday waxaa kaloo jirto hadduu Ilaahay yiraahdo dhaqaatiir halkan noo yimaadeen Turki ah qaar diyaarad ay ku noqdeen qaarna ilaa 12 halkan ay ku hareen iyo daawooyinkii ayagoo dadka fudud dhaawacyadooda halkan ku daaweyn doono dawladda Soomaaliya mar qaarkood waxaa la doorbidaa in dadka la wado qof oo hadda dhaawaciisa fudud dhakhtarka Turkiga oo halkaas joogin meesha noogu yimid ay joogi doonaan daawooyinkan ay wataan sidoo kale hadduu Ilaahay raali Britain waxaa imaan doona dawladda aan walaalanahay
qatar ayagana ilaahay duuraha yiro diyaarad soo diri doontaa dadka kale dhaawaca haray oo ayagana darna insha Allah beriyaan diri doona biidna kariim waxaan rabaa halkaan ummadda Soomaaliyeed inaan soo gudbiyo dawladda federaalka iyo dawladda goboleedyada ma nasanin markuu dhibka dhici lahaa hadda sidoo kale saxaafadda idinkan sida u soo jeedin sida u tabanaysiin waa idinka mahadcelinayna waxaan ilaahay ka baryaynaa in dhacyadan mar dambe nagu soo noqonin waana mahadsantiin assalaamu calaykum Ben de öncelikle Somali halkına ve Türk halkımıza başsağlığı diliyorum. Bütün vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. ugu horeyn waxaan tacsiyo tiiraanyale u dirayaa shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Turkigaba waxaan ilaahay naxariis u weydiinayaa intii ku geeriyootay sidoo kale intii ku dhaawacantay waxaan u rajaynayaa caafimaad degdeg ah Sayın Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi dünden beri hem devlet yetkilileri hem bizim Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki çalışanlarımız biz de Büyükelçilik olarak sabaha kadar bu iş üzerine çalıştık. sida gudoomiyaha gobolkaba uu xusay maan mas'uuliyiinta dawladda laga bilaabo xalay ilaa hadda way taagan yihiin sidoo kale waxaa ilaa xalay taagan oo shaqaynaya shaqaalaha iyo dhakhaatiirta cisbitaalka Digfer Patlamanın büyüklüğünü göz önüne alarak dün Sayın Başbakan'la, Somali Başbakan'la yaptığımız görüşmeden sonra acil olarak Türkiye'den böyle bir hastayı taşımak için uçak talep ettik. kadib markii la arkay baaxadda qaraxa uu leeyahay yaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya wuxuu dowladda Turkiga ka codsaday in waxa way gargaar degdeg ah la soo gaarsiiyo dadka dhaawacmay Hükümetimiz de hiç vakit kaybetmeksizin birkaç saat içerisinde şu anda havaalanında bulunan uçağa gönderdi. dowladeennana waxa way iyadoo aan wax waqtiya luminin yaa si degdeg ah waxay soo direen diyaaradda hadda aad aragteen meeshan ka kacday Şu anda Türkiye'de tedavi görmesi gereken 18 hastayı bindirdik. Birazdan uçak havalanacak. waxaa la saaray diyaaradda 18 dhaawaca oo Turkiga lagu daaweyn doono Biz menfur saldırıyı kınıyoruz. waxaan cambaaraynaynaa dhacdadaas ama weerarkaas oo wuxuushnimada ah Türkiye, Somali iki kardeş halktır. Bu açıdan çok hızlı bir şekilde cevap vermek bize nasip oldu. Turkiga iyo Soomaaliya waa laba dowladood oo saaxiibo ah annagana waxaan ku guulaysanay in si dhaqso ah looga soo jawaabo dalabkaas Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da böyle kritik zamanlarda, zor zamanlarda hep Somalilerin, Somali kardeşlerin yanında olacaktır. Turkiga sidii horeba ay u ahaan jirtay waxay mar walba garab taagnaan doontaa shacabka Soomaaliyeed mar horena way garab taagnayd maantana way garab taagan tahay berina way garab taagnaan doontaa Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dün bir başsağlığı mesajı yayınlamıştı. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanı Farmacıoğlu'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Doğrudan ülkemizin başsağlığı dileklerini ilettiler Somali kardeşlerimize. Madaxweynaheena Erdoğan wuxuu shalay soo saaray fariin tacsiye ah oo uga tacsiyeynayo dhacdadan dhacday sidoo kale maantay wuxuu soo wacay oo telefon kula hadlay madaxweyne Farmaajo uu u gudbiyey tacsiyadiisa iyo tacsiyada dowladda Turkigaba Biz de bu operasyonun gerçekleşmesi için bizimle çok yakın çalışan Somali yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Başta Sayın İç Güvenlik Bakanımız, Sayın Belediye Başkanımız ve diğer bakanlarımız olmak üzere. Çok teşekkür ediyorum. waxaan jeclahay inaan halkan uga mahadceliyo mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ee sida dhow noola shaqeynaya ee ugu horeeyo wasiirka amniga gudaha gudoomiyaha gobolka iyo wasiirada kale waa u mahadcelinaya İşlerimizi çok kolaylaştırdılar. waxay fududeeyeen hawlihii ay noo fududeeyeen İnşallah Somali'de halkımıza da böyle acı günler bir daha göstermesin bizim halkımıza da. waxaan rajaynayaa in annaga iyo walaaleen Soomaaliyeedba waxaan rajaynayaa inaanan arkin dhacdo sidan oo kale ah Teşekkür ederim. aad u mahadsantiin marka hore waxaan rabaa halkan in mar labaad aan ugu tacsiyey mar saddexaad shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Turkiga aan walaalanahay dadkii ku guuriyay shalay dhacdada ka dhacday oo aad u falxumeed ex control dadkaas waxaan Ilaahay ugu baryaa oo waxaan leeyahay meeshu way ku shahiideen in jannada firdaws Allah ka waraabiyo
sidoo kale inta dhaabacday ee ugu horeysay inta maanta la qaadan ilaahay iyagoo caafimaadka waddankooda ku soo celiyay inta hartana hadduu ilaahay yiraahdo oo waddanka lagu daaweyn doono qaar ka mid ah ayagan waxaan rajaynayaa ilaahay caafiyo waxaan rabaa halkaa inaan ka saxo in tiris dhaafsan ay gudoomiyaha uu sheegay 16 safiirkan uu sheegay 18 marka dadka la qaado waa 16 safiirka eragaas qalday waa ka 16 qof meesha ugu dambeeyay dadka la qaaday waxaa kaloo jirto hadduu ilaahay yiraahdo dhaqaatiir halkan noo yimaadeen Turki ah qaar diyaarad ay ku noqdeen qaarna ilaa 10 halkan ay ku hareen iyo daawooyinkii ayagoo dadka fudud dhaawacyadooda halkan ku daaweyn doono dowladda Soomaaliya mar qaarkood waxaa la doorbidaa in dadka la wado qof oo hadda dhaawaciisa fudud dhakhtarka Turkiga oo halkaas joogin uu meesha noogu yimid ay joogi doonaan daawooyinkooda ay wataan sidoo kale hadduu ilaahay raadi beritan waxaa imaan doona dowladda aan walaalaanahay ee Qatar ayagana ilaahay duuraha diyaarad soo diri doontaa dadka kale dhaawaca haray oo ayagana darna insha Allah beriyaan diri doona biidna kariim waxaan rabaa halkan ummadda Soomaaliyeed inaan soo gudbiyo dowladda federaalka iyo dowladda goboleedyada mana sanin markuu dhibka dhici lahaa hadda sidoo kale saxaafadda idinkan sida u soo jeedin sida u tabanaysiin waa idinka mahadcelinayna waxaan ilaahay ka baryaynaa in dhacyadan mar dambe nagu soo noqonin waana mahadsantiin assalaamu calaykum